bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada warka saacadda tv-ga hirshabeelle oo aad hadahan oo kale daawataan. wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warqad ay soo saartay waxa ay ku fasaxday in magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya lagu qaban karo banaanbax xilli maalinimadii shalay maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ay si cad u diideen in muqdisho aan lagu qaban karin banaanbax, waxaana shirkaasi shirgudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir Cali Yare ayaa dhankiisa waxa uu si cad u sheegay in aan magaalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya lagu qaban karin banaanbax, balse wasaaradda amniga xukuumadda federaalk Soomaaliya bayaan ka soo baxay ayaa lagu fasaxay in muqdisho lagu qaban karo banaanbax, balse dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa looga digay in ay sameeyaan banaanbaxyo rabshado wato. warqad ka soo baxday dowladda Mareykanka ayaa waxaa walaac looga muujiyay geedi socodka doorashada muddada dheer dib u dhaca ku yimid. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo akhriyay warqadda ka soo baxday dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku ay la socdaan hirgelinta heshiiska 9 bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya kadib 4 maalin ee madasha wada tashiga qaran ku shirayeen magaalada muqdisho. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalk Soomaaliya ugu baaqday in la dhaqan geliyo heshiiskii ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran. waxay si gaar ah dowladda Mareykanka u sheegtay haddii ay caqabado yimaadaan ay si gaar ah cunaqabateen dhanka diblomaasiyadda u saari doonto mas'uuliyiinta ku lug lahaada carqaladeynta doorashada xukuumadda federaalk Soomaaliya. war naga soo gaaray muqdisho ayaa imika waxa uu sheegayaa in checkpointiga 21 Oktoobar ee degmada Waaberi oo gobolka Banaadir uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo sida wararku aan helayno ay sheegayaan lala beegsaday kolonyo uu la socday gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda amniga gobolka Banaadir Cali Yare. ilaa iyo hadda ma cadda faahfaahinta qaraxaasi, balse wixii war ah oo ku soo kordho waxa aad ku daawan doontaan wararkeena dambe ee tv-ga Hirshabeelle. ku dhawaad 100 dhalinyaro ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. dhalinyaradan ayaa doonayay in ay u tahriibaan wadamada Yurub, balse muddo ayay xabsi ku ahaayeen dalka Liibiya. waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalk xukuumadda Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa muddo waxa ay ku xayirnaayeen dalka Liibiya, halkaas oo ay ku jireen xabsi ku yaala dalkaasi. ilaa iyo hadda dalka Liibiya waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo doonayay in ay u gudbaan wadamada Yurub, balse waqtigan ku jira xabsiyo. dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda, waxa ayna u mahad celiyeen dowladda federaalk Soomaaliya ee dadaalka ku bixisay sidii xorriyadooda ay dib u celin lahaayeen loona keeni lahaa dalkoodii hooyo. dhanka kalena waxaa sicir barar ku yimid maciishada qutul daruuriga. suuqyada magaalada Jowhar ayaa laga dareemayaa sicir barar dhanka maciishada ah. shacabka ku dhaqan Jowhar iyo ganacsatada magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegeen in waqtigan uu qiimaha la kala iibsado raashinka qutul daruuriga uu sare u kacay, taas oo ay ku sababeeyeen in ay tahay sicir barar guud ee ka jira guud ahaan Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdullaahi Qoorgaab ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan waxa uu ku wareejiyay deeq gargaar ah oo shalay toole laga dejiyay beledweyne. deeqdan gargaarka ayaa qayb ka ah deeqihii lagala wareegay jimcihii aynu soo dhaafnay dowladda Hisotaga Imaaraadka Carabta. wasiirka gargaarka ayaana gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku wareejiyay deeqdaasi si loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Hiiraan.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa ku baaqay in wali dowladda Soomaaliya ee gurmad xoog la gaarsiiso Beledweyne. madaxweyne xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaana horay ugu baaqay in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolkaasi Hiiraan. وهاجاك داوديال intaasi ayaan ku joojinayaa warka saacada ee TV-ga Hirshabeelle wixii warar ah oo soo kordhay qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku daawan doontaan.